بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام أمد الصومالية وحنكو سلام يا سلامتي إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال الله لي مشهد الدنيا ده على الذي ذكرته تامبه وولاشين خطرة وإني سلامي سود وهذا ولا لي المعان أنا إني وذا ما هاد علنا هي وحن رباب برنامج إنا صارتان سبسكرايب إنا صارتان ومدي إننا صاحب بدينا ألو ذاكتان ومركي إنتاس تم برنامج قصابسن تاس أيان إن الله marka walaal waxaan rabaa inaan idin sheego maxaa ka socda wadanka Soomaaliya. Soomaaliya waxay ku mahmaa jirteen kastoo maamaayada Soomaaliyeed iga wada maqan yihiin. Waxa la yiri been way sheegaan laakiin run bay ku mahmaahaan. Marka in waxa jirta in waxyaalo badan oo very disgusting ah oo wadanka ka socda. Haddana waxa jirta waxyaalo la yiraahdo xin oo xaasidnimo ah oo la rabo ma aragtay waxyaalaha qaarkood markii lagu hadlayo rag waaweyn oo aniga aabahay ku faca in maaragtay iska ilaaliyaan waxyaalaha ay ku hadlayaan waa waxyaalo laga fiican yahay siyaasadna aan noqon karin Soomaalinimadana meel uga dhacaysa jab problem baa haysta Soomaaliya oo la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sheekadii uu saxeexay oo geeska Afrika ahaa ayuu maanta daraadeed u tagay Eritrea in uu ka soo helo anka ciidamo xoog leh oo ilaa 5 kuna wad la socotaan xalay iyo habeen hore tan sheegaynay sabab kale uu tagay male waa madaxweyne aad u fudud waa madaxweyne aanan madaxdu waxay tahay macnaheeda aanan aqoonin waa madaxweyne rabo markuu yimaado inuu ku marmarsado COVID-19 ka oo laga aqbali doonin oo asagoo baabuur lagu wado oo meel loo wado intuu baabuurkii dariiq dhaxdiis istaajiyay xal sheegay intuu ka soo degtay islaamiga Eritrea xabadka iyo wajiga iyo daamanka ka shushuminayay waxa weeyaan waxyaalo aan loo adkeysan karin oo magaca Soomaaliyeed meel uga dhacaya iyo calanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waxyaalaha uu ku dhaqmayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa waxyaalo very disgusting waa waxyaalo muddo dheer laga soo hadlayay waana waxyaalo badan oo imika maaragtay markii ay bilaabato maaragtay loo sheegi doono iyo dadka caada qaatooyinka oo lagu masruufo maamada yaanyada gada lacagteeda lagu masruufo ninka daciska gada lacagtiisa lagu masruufo ninka shamintada xamaale lacagtiisa lagu masruufo waa dadkaas dadka laga qaado wiilka yaro ardayga ah oo mootada saddex lugoodka wada lacagaha laga qaado ayaa lagu masruufaa ragga qurba joog ah oo iska dhigaya inay wax garad yihiin oo kuwa shay oo la wada ogaaday adduunweyniina ay la socdaan qaramada midoobay ay la socdaan oo kuwa shay qof iyo cod waana la ogyahay hiilada iyo hanka ay ka leeyihiin Soomaaliya in ay baabi'inayaan shacabka Soomaaliyeed ha u mawlidinina in qaramada midoobay iyo international kuba ay moogyihiin dadka Facebook-yada ku jira ama YouTube-yada oo iska dhiga inay yihiin rag wax garad ah laakiin aanan ogeyn meel ay ka bilaabato xargu iyo meel xargu ku dhamaado oo lagu gunto midna aan la socon Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markan shacabka Soomaaliyeed uu leeyahay ana madax u ah aan halkaas oo kala dhigno oo ka hadlno maaragtay wadan ahaan aad iyo aad buu ugu gafay aad iyo aad buu wuxuu u sameeyay waxyaalo qalad ah oo asiga birka maalin markuu ka degto lagu weydiin doona madaxweynuhu waa ninka isku dayay inuu Eritrea iyo Soomaaliya isku daro ilaa hadda wuxuu wadaa sheekadaas in geeska Afrika la isku daro waana kalgiis waxa hiiloonayo iyo nin kalgii taliye ah oo la yaqaano oo baabi'iyay oo gumeeyay wadanka Eritrea oon ognahay dhibaatada Eritrea ay soo martay iyo dhibaatada uu u geystay asaga iyo inta ciidanka oo caad qaadatada oo Eritrea joogta waana waxyaalo aan looga hareynin laakiin annaka asagu waxba nooma geysan laakiin ninka wax noo geystay oo damacsan wadankeena inuu wadan kale ku lifaaqo war Soomaaliya waa international adduunyada Yurub aan wax la wadaagnaa war Afrika oo dhan baan wax la wadaagnaa maxay tahay ninkan warqadaha uu saxeexay oo leeyahay geeska Afrika la isku daro oo wali uu ku indhacdagayay marka waxaan rabaa inaan ogaado nimanka Soomaaliyeed oo daafacaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhahaya qof iyo cod rabaa madaxweynuhu qof iyo cod madaxweynuhu ma rabo madaxweynuhu wuxuu rabaa dhiig inuu ku daato Soomaaliya hinnow inuu aaminkii wadanka uu waxba ka sameeyay hinnow inta dastuur ku dhigayo inuu Farmaajo waxba ka qabanin oo wali ku indhaadag yahay inuu geeska Afrika isku daro oday jooga Ethiopia oo la yiraahdo Abiy Ahmed iyo nin jooga Eritrea oo aan arkaynay sida uu oo xuduudkii diblomaasiyada ayuu jabiyay waa ninka baabuur ka degtay madaxweyne adduunyada sameeyay male in uu dadkaas ku dhegdhego waa waxyaalo oo dadkiisana aanan ahayn iyo sida uu u gumaaday ummadda Soomaaliyeed laba isku barbardhiganta ma ahan laakiin caad qaadatiyaasha waa naqaanaa ka dambeeya oo dhahaya iyo waxyaalaha inta arrimahaas aanan u sii gelinin waxaan rabaa dad waxa jira aad uga hadla wadanka Galmudug anigu nina inaan wax dhaho ma rabo laakiin waxa loo baahan yahay waxyaalaha ay ku hadlayaan dumarka Soomaaliyeed ama waxyaalaha ay ku hadlayaan ragga Soomaaliyeed iyo cadownimada loo qabo wadankan Galmudug la leeyahay ila dhageysta waxay rulaaliyaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا معا أنيكا وحان كوجدوي nin sacada iyo niman daarooda majeerteen ah oo doodaya maxay ku doodayaan waxay leeyihiin reegal mudug haddaad tihiin waxaa leedihiin gobol iyo bar oo tuuganimo iyo xaqdarro ayaa soo qorqorateen qaadrooy walaalay waa ku baryayaa saacadan aniga habeen baray ii tahay hadalkaasaan tan iyo saakayoo dhan ay ku doodayaan sababta loo keena gaalkacyo kuraasta ayay ku doodayaan see u noqon karteen laba gobol oo buuxdo marka qadroy waxaad samaysaa hadda ka horna waad iga ballan qaaday waxaa igu tiri maryanay ma rabo in hadalka gabadhan uu baxo marka gabadhan hadalkeedan diidaya inuu baxo
السلام عليكم waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago nimanka noocaasa oo wadanka Soomaaliya qaska ka wada oo cudur galmudug la yiraaha ay ku dhacday waxyaalo lala yaabo waay burtulasa u taqaanaanba ama aan u aqaano ama aan u naqaano waxay ka tirsan tahay waa galmudug sheekadan waxa ka dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud markii la sameeyay galmudug ayadoo burtula ay ka mid tahay galmudug ayaa waxyaalo badan marka asagu wuxuu leeyahay in Cabdirashiid Ali Sharmaake ما فدي ماشي عداده إن عبد الرشيد وقائن الوطن وانك حيبت الصوماليا وقدر وصحيحي وطن كإثيوبيا يكينيا وأن أغنهي وضنو يأفقوا كي مادة الصوماليا إنه لهين أن المقدشين أو لوك صادقين ومركو ودن بيسين أو صاقلي إن مقالة دا إن بوتلاند أوكي وودن كيسي ننو مديدن وهصاقلوا لكن رجع قسكا وناشا كوضا أما العقد لغو مصروفي يقولي أي كينيا ودستي أو العقاد أركتو حوغلا أو كوقاتي بدي صوماليا نينكا هادلي أو ودن نما أي كترتو أو صومالي نما كهادلاهي مجرتو لكن وعلى الربا dhulal ayna dadku lahayn inay badsadaan war meeshan waxa loo baahan yahay waa la hayaa historiga geographiga waa la hayaa ninka aan geographiga qabin oo intuu iska soo fadhiistay idaacad iska daldalmahaya oo meel intuu soo fadhiistay qabiil ku daldalmahaya horta waa wax Soomaali oo xumaataha u soo hoyatay markoona taariikhda iyo geometriyada from Puntland iyo Soomaaliya galmudug u dhaxaysa aynan ka warhaynin ama aynan ogeyn maaragtay waxyaalaha qaarkood waa wax loo adkeysan karin laakiin waxyaalo badan way isbedeli doonaan hadalka waxay soo galiyeen madaxweyne qorqor ayaa ku jira hadalku waa weyn yahay laakiin ma rabo inaan afaareyga waxaan rabaa tartiib inaan niila socodsiiyo oo lagala hadlay oo loo sheegay oo lu yiri war adinku horta hore labaad ka hadlaysaan hal iyo bar ma haysataan baa yiri waxaasoo dhan waxa keenay waa kuraasta gaalkacyo la geeyay gaalkacyo la ogaa ilaa dawlad Soomaaliyeed la aas-aaso oo ay maxaan dhihi lahaa wadamadii iyo dadkii hore oo dhintay ka hor waa la ogaa gaalkacyo meeshay habargidir ay ku deganeed iyo meeshay ka soo askuntay iyo meeshay ay fadhiday waa la ogaa sidii loo degaan jirayna waa loo ogaa waxa jirta waxyaalo yar yar Allah u naxariistay marxuumkii hore Maxamed Siyaad Barre oo sameeyay waan ognahay in galmudug la qiyaamay waxaan ognahay maanta galmudug inay gobollo badan ka maqan yihiin waana la hayaa taariikhda maapkana waa la hayaa dadka yoona u malaynin Soomaalida maanta Muqdisho joogta oo galmudug kaliya joogta inay hayso maababka ay galmudug leeyihiin ama xuduudka from Puntland iyo Soomaaliya u dhaxeeya waan ognahay marka waxyaalo badan baa jira horta waxaan leeyahay dad yahow anigu ma raba inaan dab shido laakiin waxaan arkaa wali still dad badan inay ka calool xun yihiin galmudug oo la rabo dhulalkii galmudug in la qiyaamo marka ragga galmudug iyo dhalinyarada hadda ubaxa oo soo kacayso reer galmudug waxaan u sheegayaa inay be careful yihiin inay gobolle ka maqan yihiin galmudug insha Allah maanta maalinaan ahayn ee helayaan gobollada galmudug ka maqan markaasna xisaabtu ay si fiican isku soo xiri doonto laakiin haddii loo gartay in la iska dhiibo burtulle iyo meelo badan oo annagu aan ognahay oo galmudug laga leeyahay qabiil maaha waxaan waa degaan marka degaankii haddii qabiil la geliyo oo burtulle ay ka tirsanayd galmudug oo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhiibay iyo ninkii la dhahayay baalkii ay hadalla ka keeneen horta waa xisaab xumo u soo hoyatay anigoo jecel cidda la leeyahay Puntland oo waxba u qabin laakiin ragga noocaan oo kaleeta oo waliba dumar ankee ay ku jiraan oo aanan I don't like it oo codadkooda la maqlahayo Englishkuna uu yahay broke English wax la yiraahdo waxaan rabaa inaan maalin ma rabo waqtiga aan ugu talagalay YouTube-ka inaan kan ka buuxiyo laakiin Facebook aan soo wada saarhayaa aniga I don't like dumarka ku hadla broke English-ka ama English-ka si fiican ugu hadashid ama banaanka ka martid oo inta aad taqaano adigu aad safe garaysato ayaa fiican marka waxaan leeyahay walaalayaal macaan aan u soo noqono midii dawladda taas markaan si fiican uga sheekeynaya markaan soo galo Facebook-ga caawi ayaa si fiican codadkan u wada dhageysanaysaan Allah korka dhigana dadka ila socodsiiyay hadda ka bacdina waxyaalo badan oo qarsoon ayaan idin dhageysiin doonaa oo markii hore iska ilaalinayay laakiin cadownimo aynan ahayn laakiin Soomaalida wali dad buka inay iska jiraan oo Soomaalinimadii jiro qof shakhsi ah oo qaba oo ka hormarinayo Soomaalinimadu waa wax muqaddis ah Soomaalinimadu Soomaaliya dhan bay ka go'an tahay yar iyo weynba waa muqaddis
ama ka imow puntland ama ka imow koonfur galbeed ama ka imow galmudug ama xamar ka imow ama hirshabeelle ka imow ama jubbaland ka imow soomaalinimadu waa muqadis waxay ku tahay maantay dhulalkeennii ayaa lagu soo duulay oo waxaad aragteen ciidan ilaa 8,000 kor u dhaafaya oo military oo etoobiyaan ah ayaa koonfur galbeed weli dhulalkeennii ku jira oo dhulalkeenna khayraadka ku jira la baxahaya oo madaxweynuhu u saxeexay oo yidhi cayayaanka soomaaliyeed ma istaahilaan marka waxaan jeclaan lahaa midda qabiilka hal mar inaa intaad duurtaan aad meel dhigtaan oo waddankiina aad shisheeye ka celisaan markaas kabacdi haddaa rabtaan adinku soomaali isku soo jeestaan ama puntland ama galmudug ama meel kastaba ha ahaato laakiin marka hore waa inaan shisheeyaha iska riixnaa waa inaan cadowga etoobiya oo aan leenahay iska qabanaa waa inaan iska qabanaa eritrea oo maanta aan la filanayn oo cadow noo noqoto inaan iska qabanno waa inaan kenya dadkii ka dambeeyey cumar cabdirashiid oo ka dambeeyey kenya oo soomaaliya lug soo dhigi waayey oo laga hayo oo cabdiraxmaan cabdishakuur oo warqado ka hayo ra-iisul wasaarihiisii hore oo asagoo hoos tagaayay oo lagu caayo lagu ijaafeeyey oo asaga aan wax laga sheegin oon ognahay inuu saxeexay oo lacag xoog lena uu ku qaatay oo maanta la yidhi milyaneeraan kaa dhigaynaa kenya oo lacagihii kenya ay lahaayeen shacabka kenya inta la xaday la siiyey ninka la leeyahay inaa cabdirashiid cali sharmaako cumar marka taas ayay ahaato soomaalinimadu waa naga wada go-an tahay muqadisay naga tahay qof kasta oo soomaaliyeed iyo gobol kasta oo aad degan tahay waan ognahay wadamadeennii calooshad u shaqaystayaal inay xeebtii ugu weyneed oo u saxeexay maxamed cabdulaahi farmaajo etoobiya iyo eritrea oo la hayo iyadoo documentation oo la hayo xeebta dheer oo soomaaliyeed in eritrea loo saxeexay iyo etoobiya inay ku danaystaan uu farmaajo u saxeexay waa taas wuxuu naagaha dariiqyada intuu u istaago u leeleefahayo madaxweyne dhan oo jamhuuriyad la yidhaha dimuqraatika soomaaliya ka socota oo madaxweyne u yahay oo baabuur xiina intuu ka degto oo naaga ajnabiya oo u shushuminahayo adduunyada kama ay dhicin laakiin ceebtii ugu weyneed waana haysataa soomaaliya barkee waa nin maskiin oo laciifa oo liitoon aqli lahayn oo raba inuu soomaaliya sii xukumo oo maanta ciidamo keensado maanta soomaaliya special gobolka banaadir waa alleerta waa taagan yihiin banaadir maanta nin kasta iyo cunug kastoo saqiirka soomaaliya alleerta waxaa loo taagan yahay alleerta u noqotay in farmaajo la iska qabto ayay u noqotay anigu waxaan leeyahay february la gaari maayo ninka noocaas oo kaleeto oo asagoo diblomatic ah intuu dariiq istaagay u degtay dad oo shushumiyey dad ajnabi ah ma cudur buu rabaa inuu kasoo qaado uu yidhaaho doorasho lama geli karo covid-19 ay gu soo dhacay ulajeedadu maxay tahay ciidamo ha lay siiyo ha soo wato ha keensado laakiin mid baan inii sheegahayaa shacabka soomaaliyeed farmaajo waa qaa'inul wadan asaga iyo inta u dooda oo facebooka ku jirta iyo youtube-ka lacagta shacabka maamada yaanyada gada maamada cajiinka gada lacagteeda canshuurta looga qaado ayaa la siiyaa maamada dariiqa fadhida oo jaadka gadaysa inay ilmaheeda masruuf ay cunto ku siiso ayaa looga qaadaa farmaajo wuxuu liiday ciidamadii soomaaliyeed ayuu dhulka tiray markaasuu wuxuu isbiday inuu shisheeye wax ka raadsado ma ka suurtoobin dadka iyo ubaxa iyo kacaanka iyo naagaha niikinahaya oo bistoolooyinka wada siiyey magaalada muqdisho si uu ugu soo noqdo madaxweynenimada niman london jooga ayaa u sacabatumahaya waxaan leeyahay waa bosanero nimanka london joogo farmaajo u sacabatumahaya farmaajo wuxuu baadiyey magaca soomaaliyeed jidka magaca soomaaliyeed ayuu meel uga dhacay shacabka soomaaliyeed ayuu meel uga dhacay calanka buluuga oo xidigta leh ayuu meel uga dhacay maxamed cabdulaahi farmaajo waa shisheeye kalkaal waxaana inii sheegahayaa soomaaliya haddaanan hadda sarijoogga laga kicin oo today aan laga qaban farmaajo waddanka waa shisheeye kalkaal etoobiya eritrea ugu cararahaya waxaan leeyahay madaxweynaha jabuuti wax kastaba ha ahaato madaxweynaha jabuuti waa nin soomaaliyeed waa nin walaalkeena waa waddanka wadamada ka maqan soomaaliya oo naga maqan ayay ka mid tahay jabuuti nacayb wuxuu ogyahay inay isku qabaan eritrea iyo jabuuti inay nacayb isku qabaan marka ma walaalahayga jabuutiyan anigu la duubtaa mise waxaan la duubtaa eritrea oo cadowgii walaalkay iyo ciidaydii dagaal ku ah ayaan la duubtaa anigu maya anigu waxaan la duubanayaa jabuutan la duubanayaa is my own plot waa dhiigaygii jabuutan la duubanayaa anigu ma fahanti asagu laakiin asoo og in dhibaata ay ka dhex taagan tahay biyaha soomaaliyeed meel kastay tahay ama jabuuti ahaato ama soomaaliya ha noqoto ama dhinaca maaragtay kenya ha noqotay biyaheedni lagu wada dhegan yahay oo wadamo laciifa ay ku wada dhegan yihiin ayuu nuxur ka raadiya ayaga wuxuu og yahay eritrea inay tahay cadowga jabuuti markaasuu madaxa usoo salaaxaya oo islaamihii dhunkanaya maxuu u dhunkan waayey markuu tegay jabuuti gabdhaha jabuuti oo soomaaliyeed maxuu u dhunkan waayey no waa nin shisheeye kalkaal ah waa nin raba oo nacaayay haddaan soomaali nahay oo na yidhi cayayaanka aboorka waa ka darannahay uu yidhi
qadarna waxay tiri noocaas hadday tahay hala kala yareeyo cidda hawiyey tiro cayayaanka waryaa waddanka jabuuti hawiyaa jooga oo u dhashay oo aniga igu soo aftirsanaya ayaa jooga may fahantay inaa cadow jabuuti tahay oo cadow soomaaliyeedna tahayna waa ku ogaana maanta laakiin elitrea jabuuti waxay ka qaadaysa male soomaaliyana waxay ka qaadaysa male iyo awalka maxamed cabdulaahi farmaajo tafadal ayaan ku leenahay inaadan madaxweyne soomaaliyeed aadan ku habbooneen qaramada midoobena waa u sheegaynaa waanan u jeedaan waxa aad samaynayso soomaaliya oo ciidamo leh inaad ciidamo kala raadiso maxay tahay waa qiyaamo adigu aad wadato oo jeebkaada aad ku wadato barkee tuug baa tahay ninku rabo oo soomaaliyeed male walaa xildhibaan walaa wasiir walaa gobol soomaaliyeed dir iyo daarood yahawiye maanta ninku rabo male jilaac iyo jareer waa lagu wada naxay dhagaxda waxay tahay aad basashin ku raadsatid oo qalbiga aad uga wareerisid soomaali waa ku barata walaan dhagaxiyaan inta ka qaaday koonarka kalaan dhigay mii sheegi kartaa dhagaxaad iga qaada aniga dhagax igama aad qaadan marka soomaalidaan rabaa inaan la hadlo iyo ciidamada soomaaliyeed kun jeer waa inila hadlay maantana waa inila hadlaya ciidamada soomaaliyeed waxaan u sheegahayaa cadow ana maxamed cabdulaahi farmaajo inuuna lahayn madaxweynenimada uu yahayna ma aaminsano maalinna etoobiyaan ciidan uu inii keenahaya maalinna electration kun oo ciidan uu soo codsanaya sababtu maxay tahay inuu doorashada waddanka uu musuq maasuqo ciyaalkii bistoollooyinka la siiyey asaga iyo fahd yaasiinna ay joogaan marka labaduba waa dan u shaqeeya al-shabaabna waxaan leeyahay bicareful ka ahaada cadowga soomaaliya la dagaalama laakiin shacabka soomaaliyeed oo aad qarxinaysaan oo aad baabi'inaysaan waa inaad joogtaan iyo meelaha aad kusoo duulaysaan waa inaad ka joogsataan aan leeyahay bakee waxaa noo caddaaday naagaha ka mid ah ayaa waxay samaysay magaalada aad ogtihiin soomaaliya anigu aanan rabin hadda inaan si fiican usii dhexgalo nin nimanka ugu waaweyn al-shabaab ayaa qabay shalay meh dorad waad ogeedeen markay aragtay ciidamadii soomaaliyeed inay usoo socdaan baarahayaan gurigeeda ayadaa isku qarxisay marka waxay ogeed gurigeeda haddii la yimaado in laga helahayo wababkii la dhigay markaasi isku qarxisa meesha kaabayaasha al-shabaab mid ka mid aha qabay marka waxaan leeyahay noocaas oo kale waa qof taariku salaad ah naagtaasi waa ohlinaar nafta ilaah baa iskale mii fahantay laakiin qofka ugu talagala inuu naf islaameed uu dilo waa ohlinaar waana ohlinaar adduunya aakhirana kuma wanaagsano qofkaasoo kale in tiirka la geeyaa ku wanaagsan laakiin maxay ku dhacday way isqarxisay that's right marka anigu ciidamada waxaan la leeyahay cadow aan farmaajo ahayn iyo fahd yaasiin ciidanka soomaaliyeed ma laha marka ciidanka ka warqaadanaya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dadka shacabka soomaaliyeed oo bistooladaha inta la siiyey daroogada lagu daldalay nin iyo naagba ay yihiin iyo habraha bacweynayaasha oo balwadda lagu daldalahayo waxaan leeyahay dadka aad dilaysiin waa shacab soomaaliyeed farmaajona waa shisheeye kalkaal wanaag adinka inima soo wado balwadda gaar ahaanta aad leedahay ha u eegin maamada dariiqa jiifta oo shilin aynan haysan oo naas qanjirkii sidii loo nuugahayay dhammaaday qanjirkii oo dhan oo dhacay oo canjeero camal oo noqday calashaan waxay nafteeda ku kabto ee ilmaheeda siisa ayay weyday markaasi boorka iyo buska muqdisho boorkeeda ay dhex fadhidaa guri male mele wax ka cunta male ilaaha u maqan qof kale u maqan male maxamed cabdulaahi farmaajona lacagtii naagtaas iyo ciyaalka yaryar oo dariiqyada saas u wada boor weyn oo jooga asaga ayaa isticmaalahaya asaa cunahaya asaa ku raaxaysanahaya adinkow ini siinahaya cuqubo aad soomaali iyo shacabka aad ka gasheen ayaad xag ilaahay ka galabsanaysaan adduunyana waa lagaaga goynaya aakhirana waa lagaaga goynaya marka waxaan leeyahay nin ciidamada soomaaliyeed waxaan u sheegahayaa cadow aanan farmaajo iyo fahd yaasiin aanan ahayn inayna lahayn qaramada midoobena waa la socdaan go-aankooduna waa soo baxay farmaajo hadduu isleeyahy ilitray ciidanaad soomaaliya keenaysaa ood u malaynaysaa inay kuugu shubaan oo xoog baad ku qabsanaysaa doorashada farmaajo xaarkaadaad cuntay aqliyaradaadaana wax kasta kuu geysay qofku markuu xaaraanta cuno aqli dheer ma laha qofka xaaraanta cuna meel dheer aqligiisu ma gaaro marka soomaali aldheertaa leeyahay jaa waa la wada taagan yahay waana la ogyahay ulajeedada uu leeyahay shiikh iyo shariif maanta ay ka maqan tahay male marka ciidamada soomaaliyeed wadannimada ka xiga gubnimada ka xiga waa calankiina oo maalin kasta ciidamo adinka aad ka fiicantiin lagu soo aruurinahayo oo farmaajo uu keenahayo barkee waa nin tuuganimo ku socdo oo raba inuu ka danaysto danaha ciidanka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed xoolahooda iyo magacooda iyo kursigooda in uu xoog ku qabsado marka xoog nin uu ku qabsan kara male farmaajo waa iskaga aadnaa laakiin ciidamada soomaaliyeed waxaan u sheegahayaa cadow aanan fahd yaasiin iyo farmaajo aanan ahayn oo aad leedihiin ma jirto midda kale oo gobollada waxa weeyaan taas annaka aan isku soo noqonna gadaal galmudug waa 4 gobol ayay u dhigantaa galmudug meeshaan mitir baa socda taariikh baa taalla way qoran tahay walaal waan haynaa juqraafiga meelaha konfiinada lagu leeyahay waa la wada ogyahay waa waxyaan ninna nin xoog ugama qabsan karo dhul asaga uu leeyahay marka caadaqaatayaasha maaragtay wasaabyada ku sheekaysanahaya ya waxaan leeyahay dad waxaa tihiin finish ah oo afka ka nool laakiin kalxanta malaxda ay ka raaracdo wadnaha hoostiisa
anigu maantay saasaan u hadlahayaa iga daacada waa nabcahay mana jecli farmaajo waana tuug waa qaa'imul wadan calankaygu baabiiyey shacabka soomaaliyeed iyo ciidaydu baabiiyey inta aan soomaaliga ku noqon lahaa shirinkii soomaaliyeed oo lasoo wado looga tago miiska saaran ayuu diida farmaajo wariyaa dowladnimo waxaad ku tahay waa calanka iyo lacagta aad leedahaad ku tahay may fahantay soomaali waxaan rabaa inaad ka wada dhidhisaan calanka iyo lacagta ayaad soomaali ku tahay maalinta lacagtaada aad ka tagto soomaalinimadaada shakiyaa ku jira qof kastaa ku qabsan karta qof kastaa kugu soo duuli karta markii calan buluuga keliya lee kuu calacalaya marka waxaan leeyahay saa doolarka ku baabi'in lahaydeen ama lacagaha ajinabiga waa inaad keentaan ayakaa laga rabaa baamushtarka soomaaliyada laga rabaa khayr allah ini siiyo nin kastoo soomaalinimadu ay ka go-an taha laga rabaa siiba baamushtarka soomaaliya laga rabaa inay lacagtii soomaaliyeed dib u soo celiyaan farmaajo waa loo keenay wuu diiday haddii kale soo ku dhacahaya soo waddanka ku bilaqaysanaya ya barkee boy waa la fahmi lahaa moogtaha haddana waa la fahansan yahay waddanka lacagaha iyo qayb waxa ka maqan iyo dhulalka uu saxeexay ee ma aragtay badweynta soomaaliyeed xeebta ugu dheer soomaaliya waayo mideeda kale farmaajoha saxeexay etoobiya eritrea uu saxeexay si etoobiyana dekada ku hesho 4 dekedood ay soomaali leedahay in etoobiya gacanta u geliyay laakiin never ever ma yeelanayso deked kasta ayadaa isle waxaa la soo saaray oo la yidhi xasan sheekh maxamuud ayaa 2 dekedood oo mihiina saxeexay waa olinahaar ah oo naarta jahanimana ka biyo cabi doona ragga saas yiri xasan sheekh dekedo soomaali ay leedahay saxeexay male puntland dekedeeda ayadaa haysato ku shaqaysata may fahanti tii kismaayona waa noo taallaa oo nina kuma shaqaysto tii berberana waxaa haysta waqooyi ayakaana iskale waddankuna wuxuu galay federaal waqooyina meel bay kaa taagan tahay xasan sheekh maxamuudna ma saxiixi karo marka waxaa la rabaa ceebtii farmaajo in lagu dabaro ceeb ouna lahayn xasan sheekh maxamuud xaafidullaahi xasan sheekh maxamuud ilaha xaafidahayo farmaajo iyo cadowga nimanka jooga london iyo kuwa maraykan jooga oo cadowgeenna ah oo cadowga hawiye ah ilaahay waa ka qabanaya ilaahay waxaa la yidhi laqdabada ma ogolaado laakiin ragga laqdabada ka talinahaya maalin bay kabtoodu la gadoomaysaa insha allah biidnillahi alkariim ilaahayna waxaan ka codsaday maalintaas inaan soo taagnaado maca anoo calcalayo waayeela inaan soo taagnaado aan ilaahay ka codsanaya waa caafimaad anigu dadka intay lacagta shacabka soomaaliyeed dhacaan kurujiya balastika soo samaynahaya ma ihi ruugada maalintay soo baxdo ilaahay inaan u xamdi noqon sujuudayda uga xamdi noqon waaye ruuga labaad markay soo baxdo waa inaan ilaahay sujuudayda ma aragtay aan uga xamdi noqon midba maalinta ku xigta markay sanadka ku xiga iga soo baxdo alxamdulilah inaan dhaho ilaah weli waa noolahay waa kuu xamdiyey aan sujuudda uga ooyay ilaahay ma ihi dadka intay qaataan shacabka lacagtooda goomanka iyo meelaha qaarkood kusoo sameynaya waa iskala weynaanay cimrigaadana wejigaadaad ka dareemaysaa may fahamta ilaahana loogu xamdi noqaa marka taasaan leeyahay habraha dacweynayaashana waxaan leeyahay xaaraan iyo xaqdaraad ku socotaa ilaahana ina qabanaya soomaali maxamed oo dhan oo ducaysatay ayaa ilaahay inta farmaajo taageersan oo dhan kusii daysay waa qaa'inul wadan waana tuugo waanan u jeednaa silca soomaaliya dhagax laga qaadina ma jirto shalay markii la qaaday xalay waxaa la yidhi qatroy dhagaxdii meel kale haddana la dhigay dariiqyadii waa wada xirmeen wiilashii waxay soo wada istaageen idaacadaha iyo ko qaylinahaya oo dowladda u sheegaya war haddii jidkaan aad furtay kii kalen ku socon jirina maxaad u xirtay waaye marka waa show off la dhigahayo oo simbatiye looga raadinahayo shacabka soomaaliyeed habeenna ha ku seexanina farmaajo inuu dariiq inii furo wuxuu isleeyahay markaad soo noqoto ay shacabku kuu sabciyaan ageen dhagaxdii in ka badan keen ciidamo ajinabiyana keen soomaalidana ka wada takhallus ulajeedo kale uu leeyahay iyo aayo kale uu leeyahay farmaajo ma jirto waa qaa'inul wadan waa fraud madaxweyne ah oo fraud sameeye weeyaan waa criminal farmaajo every waddan kastana waa loo sheegay qaramada midoobeyna gacantay ku hayaan haddayna qaramada midoobey ninka u sarreeya iyo ninka u fadhiya ambaashadoorka maraykanka ay caado qaadato labadooduba aynan ahayn ee maxamed cabdullaahi farmaajo la shaqaynahayaan mar hore indhaha ka saari lahaayeen labaduba asaa masruufo lacag siiya waa inaad indhaha furtaan xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur inta siyaasadda soomaaliya danaynaysa ninka qaramada midoobey u taagan iyo ninka safaaradda maraykanka u fadhiyaba lacagay soomaaliya ka qaataan 10 jibaar lacagta ayna qaadan ayay qaataan farmaajayna la jiraan wayna ogyihiin wuxuu samaynayo stopna ma ayna dhihin ilaa hadda marka maxay shacabka soomaaliyeed iska dhaadhicin karaan inay la socdaan ay corruptionka ayaku wax ka wadaan taasaan leeyahay waan idin salaamay salaamu calaykum ورحمة الله وبركاته برنامج كان على شيء جريو وأنا سوق لها يا فيسبوك إن شاء الله بإذن الله الكريم صومالينا هنو لا تعذب صومالينا الله يهدان الله
iyo inta daba dhilifka oo Soomaaliya cadow ku ah oo kursi raadinaysa oo cadownimo u raadinaysa say farmaajo futada uga leefaan taasaan aqaana ayaa araarbaadka qaadka cunahaya iyo xildhibaanada nolosha ka dhacay oo farmaajo raba inay u naageeyaan oo 20 ku laga bixinayo waa wax la yaab leh galmudugay iska ilaali galmudugay iska ilaali qorqorow adaa lagu soo socdaaye be careful ka oo xanta kugu socota hadaad ogaan lahayd anigu ma raba inaan halkaan wax ka dhaho laakiin xan xun baa kugu socota oo magaalada kugu jirta be careful xiniyada banaanka soo dhigan ku leeyahay xiniyada banaanka soo dhig waana ku salaam calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ummadda Soomaaliyeed